أنا ماشي واتجه وأركب ولا شيء تن أجوريس ميمون نفع كجرت وينف نفسنيش حدا مركمد أنا نفع كجرت عقاته استالك دكفير أجي دكفير روح بيجي قوي سوى قاعدة ميت كوي حرام ماشي يدقن لا بعيدا إنا لله وإنا إليه راجعون حافظا وحافظي أي كبحين سدح هويو oo lagu dilay degmada Daynile ee gobolka Banaadir saddexdaasi ayaa waxa lagu kala magacaabi jiray Fartuun Xasan Maymuun Xasan iyo Faadumo Sheekh Nuur waxa ay ka tageen tiro 12 caruur ah kuwaasi oo dhamaantooda lagu soo kulmiyay gurigan aad u jeedaan sidoo kale gurigan waxa ku sugan 2 caruur ah oo sidoo kale hooyadood hore loo dilay isla markaana hooyo u ahayd 2 gabar oo kamid ahayd gabdhihii lagu dilay degmada Daynile ee gobolka Banaadir Maqtuub Cabdulqaadir Umar oo ku magac dheer Saariyo iyo Aamina Xasan Xuseen waxa garbahooda ka baxay 3 gabdhood oo nolosha qoyskooda muhiim u ahaa waxay ahaayeen kuwo ka tilmaaman qoyska Fartuun Xasan Xuseen Maymuun Xasan Xuseen iyo Faadumo Sheekh Nuur waxa ay subax waliba u kala hijireen maareynta nolosha 12 caruur ah oo ay ifka kaga tageen Maqtuub waxa uu waayay Fartuun iyo Maymuun oo ay isku hooyo ahaayeen iyo Faadumo oo ahayd xaaskiisa laba anay dhasheen midda kalena ana qaba xaaskeygeed labadoodina markaa hore la dilay waxaan lagu dilay meel isgoos ah oo bajaajada laga raaco marka kadibna telefoon la ii soo diray gabdhiyo meeda la ii sheegay ماشي مركا تجي أخي نقطة إني قبلي مش كبنتين مركا وحكى له هذا أنا عن علاس عن كدرام علمي كتجان علمي أو أهونته هذا وحاب كسي درام مت كمت قبلها أبو هذا كور سنة أساس عمل له دلي أهونه بهيستيه مركا نينك لا يجورستي لو عنيه ولا شيء هذا نقورب ولا هذا نينك iyadoo agoon hayso oo aabihii hore u dhintay aadan abartiisii dhamatay marka anigana waxa igu jiray meesha 3 cunug oo agoon ah hadan igu jiraan mid kale oo labaad oo aniga dhalatay 5 cunug ayadan ka tagtay oo iidan oo isku xigxigaan oo yar yar ah marka dad isku xoogsatana way ahaayeen oo iska shaqeysto marka wixii loo dilayna ma sheegi karo marka saas darteed anigana hadda waa soo aasnay gabadhii aan aqab reerkooda iga la wareegeen ilaa labadii kale dadka shacabka ay la duugeen saasay macnaa arintii u dhamaatay kadib dilkii 3 gabdhood sidoo noqday dareenka qoyska aan walaa markii kooma aaminsanay markaas kadib waa walaalkay waxaan dhay arintaas la sheegay dumaashida waxaan dhay arintaas la sheegay ani hadda waxay dhaad markay ay igu soo walaalkay waxaan dhay arinta la sheegay maxaa wax ka jiraan run waaye ilaa u naxariisto والله نحتن أد وين والله وحلا قبكر قفك دي قفك ما أنت فرتون واحد متمينون واحد متفاعلون واحد متقفك ده محكول هذا الشل يعني قدام بيس قارمة قفك دتك قفك نوع اسكن حين وحى قبتين وحكى لك الكسواين والله شاكر الشل مسكين قدام بيس بدر إصلاحنا سد هذا بشال اسكولو عن بدر حال المغرب كلا صوتك الحمد لله كإله دب كان الحمد لله دينا محاكلا وخبكرنا Aamina Xasan Xuseen hadda waxa ay gurigeeda ku haysaa 14 caruur ah oo 9 sano jir u weyn tahay 1 sano jirna u yar yahay wax kala sameeyo malaha caruurtu waxay haystaan mal horta ay ka u shaqeysana xoogood wixii ilaa u soo kabaysiisanay wax kala hadan ilaa qaba ilaa garabkooda gala waxa ugu weyn gabadha kale waxa ugu weyn 7 jir gabadha kalena 9 jir oo hadan ka jaban tahay inta soo waxa ugu yar 1 sano 3 bilood iyo 2 sano labada gabdhood mid kale tan 1 sano iyo 5 bilood iyo waxa ugu weyn aydan 4 jir ugu weyn gabadha kale dimaashiyay alxamdulillah waxay qabaan helayaan cunayaan dhacdo walbo dhacda kala xanuun badan shaqadooda dadka nadaafada iska ahaayeen oo shirkada iyo meelaha wax ka shaqeeya oo wasaaradda iyo waxaas ay nadaafad ka ahaayeen ay iskarnaad aan ma ku ogeyn walaalay iyo wax had maanta dhibaato iyo dagaal midna ma ku ogeyn aniga intaasan ka warhaya oo kaliya Maqtuub iyo Aamina haatan waxa ay dusha u riteen hagida nolosha 14 caruur ah
oo laba ka mid ah hooyadood ay horey uga dhimatay kadib markii nin ku hubaysan toorey uu ku dilay degmada Afgooye. Maqtuub ayaa weli waxaa ku taagan maskaxdiisa dilkii loo geystay hooyadiis oo horey loogu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, balse waxaa xaalku uu ka sii daray kadib markii laba ka mid ah walaalihiis iyo xaaskiis ay dileen dabley hubaysan. waxay joogtay Afgooye meel beer dhaxdeeda dagaal mees ma ku jirin waxna ay macnaa meesh wayna soogneed maalin oo khamiis ay soontaa iyadoo khamiis inta 9 saac camal hadalkii ani ayada telefoon ku wada sheekaysanay hadalka kadibna waxa la ii soo sheegay geerideeda marka meesh tagayna waxaan ku arkay hooyaday oo dhowr toorey lagu dhuftay dil wadareedkaas marka sanadahan ugu soo naqnaqanay ma naqaan sababteeda. Zakariya Axmed Muuse.